Soomaaliya cidda la dagaashay ee iska celisay ee doorka ka qaadatay in gobonnimadoon amba halgankii gobonnimadoonku ay la wareegaan waxay ahayd dhalinyarada oo la socotaan. Dhalinyaradaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo. Waxay ahaayeen dad dareensanaa xilli waxay ku soo aadeen taariikhi ah. taariikhdaas xilli ay ku soo aadeenna way ka soo dhalaaleen markii doorashadii ay dhacday oo xorriyaddii lagula wareejiyey waxaa dalka la wareegay dowladda cusub. dowladdaas intaan ka ay mas-uuliyiinta ugu sarreyso dadka ugu badan ee dowladda mechanics-ka dowladda ama farsamada dowladda ama shaqada dowladda wada dhalinyaro ahayd. aqoon ma lahayn, dibad ma aadin, luuqadda kumaysan hadli karin, dhinacyo badan ay ka taagneed, laakiin waxaa ka goobneed inay qaran Soomaali ay dhisaan wadaniyad iyo caadifi wadaniga ku jiray inay galaan oo dhinacyo badan ay ka galaan. marka arrintaas marka waxay keentay oo ay dhalisay in dhalinyaradaas yacni xilligaas ay ku soo barbaareen ay qabteen dagaalka sokeeye markuu dhacay. markuu dagaal sokeeye ka dhaca caalamka intiisa badan meel kasoo ka dhacay dhalinyarada xilligaa jirtaa victim noqoto ama waxay yidhahdaan ayagaa dhibaato ka soo gaartaa xilligaa sababtoo ah waxay noqonayaan aaladihii la isticmaalayay ee loo isticmaalayay dhalinyaradu inay noqoto doog ay ku lahaayeen. marka xilliga asaga hadda aan ka hadlayno ee dagaalka sokeeye 1990kii ka bilowday dhalinyaradii xilligaa nooleed xaalad xanuun badan ay ku soo aadeen. dagaalka waxay u noqdeen awood loo isticmaalo, dagaalka waxay u noqdeen meelihii wax laga weydiinayo loo isticmaalayay. dhalinyaradaas marka nasiixuma ku dhacday waa 90kii ilaa laga gaaro sanadkii 2000 oo xilliga dowladnimada aan raadinayna waa xilliga ugu xumaa ee dhalinyarada noqon kartay Soomaaliya. kan qoriga wata go'aan kooxda isticmaalaya waa mid qof dhalinyaro ah, kan gaariga saaran waa qof dhalinyaro ah. dhalinyarada xilliga ku jira waa xilli aad u xanuun waxaa laga yaabaa qaar badan ka mid ah carruur aadeen ama dhalateen xilliga. laakiin 2000 markay ka bilaabatay dhalinyaradii waxay bilaabeen firfircooni dowladda ee magaalada lagu soo dhisay gaar ahaan waxaa bilowday processkii dowladnimada dhisanaynay. dhalinyarada doorkooda wax yar buu isbedelay. jaamacadihii magaalada Muqdisho ee dalka oo dhan baa furmay, dalkii baa isku furmay. waxaa bilowday fursaddan marka waxay abuurtay kooxdii markaa jirtay 2018 sano amba 20 sano jirta xilligaa waxay ahayd dhalinyaro fursad la siiyey. marka laga soo gudbo oo la yimaado sanadkii hadda aan ku jirno 2000 ilaa 10 sano soo socotay dowladnimada aan raadinaynay waxay salka ku haysay dhalinyaradii cusbeed. waxay abuureen fursad ay ku dhaqaan. qaybta dambe ee ku soo hartay waxaa waaye xilliga hadda aan ku jirno. su-aasha marka uu weydiiyey walaalkay meesha imaanaysa meeshaa dhalinyarada hadda jirto waxaa isugu hagaagay dhowr shay oo iskhilaafsan. mid waxa ay tahay dalkii waxaa ka jirta dowlad rasmi ah oo annaga aan leenahay. xilligan waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu door inay ku yeeshaan. aniga marka waxaan aaminsanahay xilligan kala guurka ah haddii doorashadan hadda socoto ay nagu soo celiyaan dad hore annagoo wada dhalinyaro ah oo aan aragti iyo vision lahayn dalka xaalad kale u galaya. madaxweynenimadu ma aha shaqo inaa balaagareysa ma aha. madaxweynenimadu iyo hoggaanku waa wixii ugu sarreeyay qof bini aadan la siin lahaa. waxay wadataa karaamo, waxay wadataa sharaf, waxaa mas'uul ka tahay oo gacanta kugu jiro 15 milyan karaamadoodii. weligaa ma maqasho qofka Soomaaliga waxa la hebel lacag buu dowladda ka dhacay. lacagta ugu badan ee la dhaco amba waxa ugu qaalisan qofka Soomaaliga laga dhaco waa sharafkiisa la isticmaalo. su-aasheedu waxay u dhacaysaa sida tan marar badan waxaa soo noqnoqday khilaaf u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. waa maxay siyaasadda kaaga aadan xalinta khilaafkaas? I agree with you. aniga waxaan qabaa haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala suuragal ka dhigi waayo wadan gudahan ku soo jiray madaxda qaar hadda wadanka joogto Soomaaliya xataa war uma hayn markaan ka shaqeynayna oo mataqaanaa aan baadiyaha ku jirnay aan howlihii nabadda ka shaqeynayna badboonta waxay taa weliga waa la shaqeyn kama soo horjeesanin. aniga waxaan aaminsanahay dowlad kasta timaad in la caawiyo, in lagu caawiyo siyaasad ahaan, in lagu caawiyo aqli ahaan hadday ogol yihiin. nasiixun waxa iska jira dowladda qaarkood albaabka xirinayo rakaabka hadda uu sheegay Cabdifataax Hadiida rakaab kale meesha oo soo fuuro. arrinta ku saabsan qorshaha arrin waxa ka dhawaajisay important ah inaan ku nagaado ku dheeraadana aan rabin. arrinta waxa ay tahay
marka waddanka noqoto mas'uulka ugu sarreeya ama kan labaad laba arrin baa dhacayso karaamada qofka bini'aadamka markuu dhinto ilaahay subxaanahu wa ta'aala ofsado waa dhamaatay laakiin qodobka ku xigo karaamada ugu sarreyso madaxweyne noqdo يعني wax kale ka sareeyo malaha hadii marka aad ka tagtid wax fiican oo legacy ah ama wax karaamo ah ka tagtid shacabka ku xasuusanayaan shacabkaaga markay ku xasuustaan caalamka ku rabaayo tusaalaan soo qaadanayna madaxweynayaasha Southern Africa yimaada dhamaantood oo even East Africa intooda badan ma bixin way joogaan wali laakiin Southern Africa iyo Western Africa marka soo qabano iyo wadamada qaarkood qofka madaxweynaha jagada markuu ka dago waxa loo dhiibaa mas'uuliyad ka weyn wuxuu noqdaa special envoy ama ergey gaar ah ayaa laga dhigaa iyo inta u dirtaa nabadoo ka shaqeeya qaarkood waxay sameeyaan barnaamijyo kale loo dhiibaa sababtoo ah experience iyo karaamadu ka tagay qaarkood waa dalban cadow maalin runtii madaxweyne ama musharax madaxweyne Jibriil sanadkooda markaa tartamaysay runtii waxay yahay sharaf maalinta khudbada aan dhageysanay ereyga aan ka xasuusto runtii waxay siinaysaa dareen markaas aniga waxaan aaminsanaa why don't we give such qof sidaan oo kale ah laakiin inaga waxaan nahay Soomaalida qabyaalada dadka qaar waxay siisaa in dana gaar ah oo ku fuulo anaga waa ku faraxsanahay madaxweyne hadaan nahay dhalinyarada naafada guud ahaan wax baratay runtii waxaan ku soo jeedinayaa guud ahaan dhalinyarada waddankeena waxaa la East and West your home is the best country waxay tahay hasha su'aasha ugu dambaysa aan waxay tahay accessibility-ga meelaha jirooyinka wadooyinka maanta Muqdisho roob hadduu way adkaanaysaa xasuusta anigu imtixaan u soo socdo jaamacada imtixaan u soo socdo wadadaan ceelqalow ilaa iyo waa dareemi kartaa mar walba biyaha fariisto madaxweyne kasto ama gudoomiye gobol ama wasaaraha ama golaha wasiirada way og yihiin nin walba waxaa waaye wadada loo kasii maraa annaga yaa noo maqan haddaan nahay naafada meelahaas oo kale dalmar aad u mahadsantahay taageeradaada aadan kaaga mahadcelinaa caawina noo timaado qodobada ka hadashay arrimaha la xiriira naafada aadan kugu waafaqsanahay wax iska saara muhiimad ma jirto hay'ad qaas ah oo dawli ah oo ka shaqeysa malaha waxaan ogahay dawladihii isaga dambeysay madaxdii isaga dambeysay inay ururka naafada ay la kulmeen madaxdii dalka masawir la isaga qaaday waxba aan la qaban arrinta naafada marka saddex shay bay u baahan tahay laga qabto anagana aan doonayn inaan ka qabano mid waxa ay tahay inta aan la gaarin in shaqo la qabto shacabka inaan sensitive ka dhigno shacabka laftigiisa in laga dhaadhiciyo xuquuqda iyo qadarinta iyo karaamada qofka naafada uu leeyahay iyo inuu dadka xaq u leeyahay wax kasta inuu qabto qof naafa ah wasiir uu noqon karaa shaqo qabsan karaa wax ka soo sameey karaa cid u diidi karta malaha seeta u dhacdo marka shacabkeena waa inaan ka dhaadhaqana u diyaarinaa inay qalbiga iyo dareenkooda u furaan dadkaas ay dhahaan marka waa shaqo qabasho u baanta qodobka labaad waxa uu yahay in la sharciyeeyo waxa u jeedaa qodobka ugu horeeya sharciyeynta u baahan muxuu yahay dalmar waxa uu yahay xafiisyada dawladdu inay noqdaan accessible إن حفيز كدولة هدي هذا كفولي كرين جرنجرو وأنا واحد كله كتير كرتا هدي دون تهلا سمي وضع صباح الله فرو قرش بدن هقله يعني أنا واحد قلنا جراند ياردد أول الدمية أو عاني بلايين دولار كوب هذه سببت اللو الدمية واحد أكسس ملاهين بركة قف كبني آدم ككرامدي يقدرن تسوليه قدر كسدحات الله السعودة أرنت أكسس كنا نافذ واحد يتاهي قد الله تلين أو الله تلين دولة إيمانيس إلا سمايو oo ah adinka ku jirtaan sababtoo ah fikirka ku leedihiin talada ku leedihiin aragtida ku leedihiin marka lama raba kaliya in la yiraahdo naafada qof baa ka hadlayo laakiin in ayaga ay hadlaan oo ayagu ay role ku yeeshaan muhiimadda ay leedahay waxaan kun markaaga mahadcelinayaa dhalinyaro badan oo wax baratay oo ka fiican dadka qaar jira ayagoo naafa ah marka naafadu yeysan noqonin qofku wax lagu xumeeyo